waxaa weli soo baxaya muuqaalo video oo cadaynaya qaabkii ay u dhaceen biliqadii iyo boobkii loo geystay hantida Soomaaliyeed ee wadanka Zambia inkastoo aan weli lahayn tiro-koob rasmi ah oo ku aadan inta uu leeyahay khasaaraha dhabta ee maaliyadeed ee ka dhashay qalaasi 14 bishan December ka dhacay magaalada ganacsiga ee Zambia Indoola oo ah meesha ugu badan ee Soomaalida Zambia ay ku nooshahay waxaa jira dukaamo la biliqaystay kuwa la gubay iyo tiro gawaari oo la burburshay qaarna dab la qabasiiyay shalay ay ahayd markii safaaradda dawladda Soomaaliya ay ku leedahay wadankan Zambia ay qayladaan u dirtay dawladda Soomaaliya si ay arrintan wax uga qabato waxaana iyadoo qayladhaantaasi laga duulayo wasiiradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ahna ra'iisul wasaare ku xigeen Marwo Fawziya Xaaji Aadan ay xiriir dhanka khadka telefoonka la yeelatay dhigeeda Zambia iyadoo kala hadashay sidii arrimahan dhacay loo qaboojin lahaa sidoo kalena loo badbaadin lahaa hantida iyo nafta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Zambia waxaana markaasi dawladda Zambia iyadoo ka jawaabaysa codsigaasi ay wafdi u hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee Zambia iyo haweeneyda ugu sareysa booliiska Zambia ay si degdeg ah ugu dirtay magaalada Indoola oo ah meeshii ay rabshaduhu ka dhaceen sida uu ku waramayo qunsulka guud ee safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay wadanka Zambia Mudane Cabdirashiid Sheekh Cali oo aanu maanta ku booqanay dhismaha safaaradda ee magaalada Lusaka marka ugu horeysa waxaan xusid mudan dadka Soomaalida ah ee halkan yimid in ay markii hore u yimaadeen gurmad ay u soo gurmadeen dadkan Zambiyaanka ah ee halkan jooga oo dawladdii Allah naxariisay Maxamed Siyaad Barre ay u soo dirtay dad technique ah ama dad farsamo oo ka caawiya maxaan ku raadayay dawladdan markaas dawladdii hore soo korisaahay ee waxyaabaha farsamada ah dadkaas Soomaalida ah meesha yimid inta badan hadda joogay waxa lagu yaqaanay dad karti leh dad nabadgelyada aad u ixtiraama haddaba waxaan anaga safaarad ahaan nagaga aadanaa inaanu dawladdeeni inaan wargelino dawladdeeni waan wargelinay waan la hadalay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiiradda arrimaha dibadda ayaan runtii arrintan ku inform gareeyay oo xog ka siiyay aad ayaynan uga maartay tacsiyeysay aad bay uga tiraayisnayd kana xumayd in ay waxaasi dhacaan waxay aad ii weydiisay u celcelisay maxaan qaban karaa maxaan aniga maxaan ku raayay igaga aadan oo sameyn karaa arrintaas runtii waxa ka muuqatay wasiiradda dareen Soomaalinimo iyo inay ka xanuunsanayso dadka halkan ku dhibaataysan Soomaalida odayaasha reer Indoola oo aan oran karo iyaga ayaa ka awood batay dhibaatadii dhacday inay controlana awood u yeeshay odayaashaas runtii aad baan u salaamayaa aad baan ugu hambalyeynaya waxaan leeyahay wax weyn baad ummadda u qabateen hawsha ka sii wada dawladda Zambia runtii dadaal aan caadi ahayn way samaysay wasiirka arrimaha gudaha uu ka hadlay arrintan Zambia dawladda dhexe waxay u dirtay wafdi Indoola oo dhib ka dhacday halka waxa ku maqan booliska ninka ugu sareeyay gabadhii ugu sareysay booliska waxa aaday dad badan ciidamo badan ba hadda la saaray waxa mudaa in qolada saxaafadda oo dan kale ay xogaa buunbuuninayaan arrintii dhacday saxaafadda Zambia ay u buunbuuninayaan in aad moodo in ayba iyagu ay kicinayaan qolaad in ay dadka ajaanibta loo qaado oo kale waa dawlad xor ah oo saxaafadda ay xor tahay wax doon ay ka hadli karto qorshaha hadda loo fadhiyo waxa weeyaan in la helo wixii khasaare ah ee dadka Soomaaliya ku dhacay marka taa la helo waxa iyadana meesha imaanaysa in la helo in maxaa ku madaxweynuhu hadlo oo ka hadlo wixii dhacay inkastoo ay weli jiraan baqdin iyo walwal ay Soomaalida Zambia ka qabaan inay dhacaan rabshado kale oo lagu beegsanayo hantida iyo nafta dadka Soomaaliyeed ayaa haddana si tartiib ah waxaa dib ugu soo noqonaya sidii caadiga ahayd nolosha iyo shaqada waxaana maanta dib loo furo qaybo kamid ah goobihii ganacsiga ee rabshadaha ku xirmay waxaana arrintan ay ku soo aadamaysaa iyadoo maanta oo axad ah magaalada Indoola aas loogu sameeyay muwaadinkii Zambiyaanka ahaa ee ninka Soomaaliga ahi uu dilka u geystay waxaana laga dareemayaa weli magaalada Indoola baqdin ku aadan inay dhacaan rabshado hor leh waxaana maanta safaaradda Soomaaliya ee Zambia ay tacsi gaarsiisay dawladda Zambia iyo waliba eheladii iyo dadkii u ka dhintay muwaadinkii Zambiyaanka ahaa ee la dilay Saciid Muuse Daahir TV-ga Universal caasimadda wadanka Zambia Lusaka